taliyaha booliska ee degmada Luuq Maxamuud Cusmaan Duqow ayaa dhankiisa warbaahinta u sheegay in isla xaadirkan ay ku shaqeynayaan xaalad adag saldhigga degmada Luuqna isla xaadirkan uu dhammaan qolalkii ugu muhiimsanaa burbur baasan waxaana uu sheegay taliyaha saldhigga booliska ee degmada Luuq Maxamuud Cusmaan Duqow in ay xiligan ay ku shaqeynayaan dhanka bulshada ay kala kulmaan dacwooyinka ugu badan isqaqabsiga dhulka iyo beeraha iyo boosaska taliyaha saldhigga booliska ayaa baaq u diray cid waliba Soomaali ah in gacan laga geysto dayactirka saldhigga degmada Luuq sida dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubbaland asagoona ka codsaday in si degdeg ah loo dayactiro saldhigga degmada Luuq maadaama taliyaha saldhigga ee degmada Luuq Maxamuud Cusmaan Duqow uu sheegay in uu isla xaadirkan iyo dacwooyinka uu ku qaado geed hoostiisa xafiiskii uu lahaa taliyaha saldhigga ee degmada Luuq uu ka muuqdo burbur baasan meeshan waa saldhiggii degmada Luuq saldhigga wuu burbursan yahay burbur fara badan baa ka muuqdo cid walba oo Soomaali ay qusayso sida dawladda federaalka dawlad goboleedka Jubbaland hay'adaha UN-ka kuwa NGO-yada dhammaan in kasta oo Soomaalnimo ay ku jirto oo qusayso bulshada kala duwan ee Soomaaliyeed qurba joogta Soomaaliyeed qof walba oo jecel wadankiisa inuu hormaro ama uu wanaagsanaado oo Soomaalnimo ay ku jirto waxaan ka codsanaynaa saldhigga degmada Luuq ee burbur fara badan oo ka muuqdo waqti dhowna aanan helin dayactir iyo cid u gurmato in gacan loo fidiyo gacan laga geysto dhismaha saldhigga degmada Luuq waa meel bulshada qosayso oo bulshada u furan ma ahan guri shakhsi uu leeyahay oo loo dhisayo marka cid walba ay qosayso oo Soomaalnimo ay ku jirto ama jecel wadankeeda inuu dib u dhismo inay ka qayb qaadato dhismaha saldhigga degmada Luuq oo burbur fara badan oo ka muuqdo waa bilacda degmada waa meesha bulshada u dhisneed meesha bulshada laga maamulayo way marka cid walba marka oo ka gacan geysan karta inay gacan ka geysato dhismo loo sameeyo saldhiggii degmada ee bulshada Cabdinuur Shabley Xasan Cabdinuur Shikir raadiyaha telefishinka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya degmada Luuq Ganaane ee gobolka Gado